tababarkan oo socday 10 maalin laguna baranayay kor u qaadida iyo tayeynta barashada qoraalka iyo naxwaha afka Soomaaliga oo ay iska kaashanayeen wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta isla markaana ay ka faa'iideysteen saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta qaranka ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda intuu uu socday tababarka ayaa waxaa si weyn ugu faa'iideystay saxafiyiintii ka qayb qaatay seminaarka iyagoo ka bartay qoraalka naxwaha iyo isticmaalka shuruucda afka Soomaaliga agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdullaahi Xayir Ducaale oo soo xiray tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka uu leeyahay isagoo kula dardaarmay saxafiyiintii ka qayb qaatay inay kula noqdaan waxa ay barteen goobaha shaqada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxa sharaf u ah in shaqaalaheeda ka shaqeeya warbaahinta khaasatan iyo shaqaale kale oo kaabayaala lagu tababaro afka Soomaaliga ee lagu qoro ama ka baxa warbaahinta qaranka waxa soo noqnoqday khaladaad fara badan oo af Soomaaliga oo lagu arkay warbaahinta marka ay qoraal ahaan wax u qorayaan wasaaraddu marka iyada arrinta ka duulaysa waxay ka codsatay akademiyada fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed in loo soo diro macallimiin tababar ku sameeysa hab qoraalka af Soomaaliga waxaanu kala saxeexnay heshiis wada shaqeyna akademiyada kaasoo ku saabsan sidii loo hagaajin lahaa luqadda afka Soomaaliga haddii aanu soo noqdo ujeedada laga leeyahay seminaarkan loo qabtay hawlwadeennada warbaahinta qaranka ee af Soomaaliga waa laba ujeedo oo kaliya xoojinta afka Soomaaliga waa qodob ka labaadna waxa weeye isticmaalka afka loo isticmaalayo warbaahinta qaranku inuu noqdo af sax ah oo ay fahmi karaan dadka Soomaaliyeed ama daawanaya ama akhrisanaya warbaahinteena haday ahaato print media oo ah warbaahinta idaacadda iyo telefishinka iyo social media iyo haday ahaato warbaahinta kale ee wargeyska oo kale wax kasta oo ku saabsan qoraal in uu qofka Soomaaliga ay ama dibadda ha joogo ama dalka ha joogo si fiican u fahmi karo Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho